إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan dadweynaha nagala socda barta facebooka waa kelmad kooban oo ku saabsan su-aal soo noqnoqotay maalmahan. aad muddana sanadkan ay u gaar tahay. sanadkan xanuunadii dhacay su-aalo badan oo gaar u yeeshay oo ka dhashay saamaynta xanuunka. mar waxaa laga hadlayay salaadihii jumcada iyo jamaacada see la yeelayaa. mar waxaa laga hadlahayay ictikaafkii iyo tahajudkii iyo masaajid bay ku saabsanayd. haddana sanadka xajkii banaanka looga imanayay baa la joojiyey. su-aalo badanoo waxaa soo noqnoqda yimid laba qaybood isugu jira. marka koobaad, xajka la joojiyey xukunkiisa ka waran. kuwana waxay leeyihin hadda ka hor ma dhacday taariikhda muslimiinta hadda ka hor ma soo dhacday. labadaas su-aal isa saaran baan rabaa kelmaddan si kooban oo daqiiqada inaan uga jawaabay insha allahu tacaala. haddaan hadalku ila taraarin, hadalku ku talagal la-aan buu bataa baa la yidhi. mas'alada xajku isagoo tiirasha islaamka ka mida, naska qur-aanka ilaahay wuxuu ku xiray inaad gaadhi karto. walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. ilaahay dadka xaj buu ku leeyahay inay xajiyaan. yaase lagu leeyahay ma dadkao dhan baa may? man istataaca qofkii awooda ilayhi xajka gaaritaankiisa sabiilan dariiquu ku gaaro haysta. inaad xajka gaadhi kartaay caafimaad aad ku jid marto waad u baahanta. qofkii xanuun u diiday laguma laha. dariiqiyo jid nabadu u baahan yahayoo qofkii meeshiiba nabadii la waayo ama si guud ha loo waayo ama isagu si gaar ah u waaye isna laguma laha. dhaqaalu u baahan yahaye qofuu dhaqaalo uu ku jid maroo xaj ku tagaba waayey isna laguma laha. saa darteed xajku wuxuu ku xidhan yahay shardiga ah man istataaca ilayhi sabiila. ayadda waxaa la mid a xadiidka anas ibni malik radia allahu canhu wa ardaahu fi saxiixi muslim wagayrih. qisadii dimaam ibni thaclaba saxaabigii ahaa ee nin nabigu uu diray oo fariintii islaamka sidee markuu u tegey si loo hubsada lasoo diree nabiga la yidhi bal soo weydiin ninkan wuxuu sheegaya run inay tahay. waxaa ka mid ah hadalladiisii wuxuu sheegtay ninkaad noo soo dirtay in ilaahay nagu waajibayey xaj nagu yahay waajib man istataaca ilayhi sabiila. qofkii jiduu ku gaaro hela inuu xaj waajib nagu yahay buu noo sheegay. nabigu wuxuu ihi sadaqa, runtii wey. marka kitaabka iyo sunnaduba waxay isku raaceen, intaan garanayaan xasuustana fuqahadu ay wada qabaan, qofkii awoodee tegi kara, dhaqaale hadday tahay, caafimaad hadday tahay, nabadgelye hadday tahay. hadda waxaad ku soo dartaa dukumenti uu ku meelmaro heli kara. qaarnada ilaan dadka dibadaha ka imanayaay diyaaradna ma soo raaci kartid, fiisana ma heli kartid. dalka gudihiisa magaalooyinka kale xataa kama soo aadi kartid inta badan adoon dukumentiya waraaqa aad jid ku marta lahayn. wax kasta aayadda iyo xadiidku si guud bay dheheen, wax gaara ma sheegin. wax kasta oo uu ku xidhan yahay inaad meeshaa gaarto. haddii wax kuu diidaayey dee laguma laha, ama keligaa noqo ama ummadda dhanba ha noqoto
ama mujtamaca muslimiinta qaybo ka mida ha noqoto. mas'alada ku saabsan xajka tegitaankiisu istitaacuu ku xidhan yahay. haddii la yidhi lama iman karo oo dadkii maamulkiisa hayay diideen oy joojiyeen, dadkii kale muslimka ah wax dembi ah ma saara, ama dibadda ha ka joogaan ama gudaha ha joogaan, waayo waajibkii waa ka dhacayaa maadaama aynan awooddooda ahayn. ma loo baajin karaa dadka khatar caafimaad iyo khatar amniya ma looga baajin karaa ama ma uga joogi karaan? jawaabtu waa nacam haa. haddii jumcadii iyo jamaacadii in looga haro ay bannaanaatay cabsi naf iyo maal iyo cirdi sharaf loo baqayaay, saa darteed istitaacada awoodda xajka culimmadu markay ka hadlayaan fuqahadu waxay ku tiriyaan in qofku naftiisa dariiqu aamin yahay, naftiisa aamin u yahay, maalkiisa aamin u yahay, cirdigiisa iyo sharaftiisa aamin u yahay. saas darteed dadku hadday xanuun ka baqaan, xanuunka ay ka baqayaan dartii xajka way uga baaqan karaan. haddii looga baqayana waa loo baajin karaa. waxay ka muuqanaysaa su-aasha qaybteeda dambo taariikhda ma dhacday xajka oo baaqda. marar badan horta way dhaceen sababo nabadgeliyo iyo sababo xanuunba xajka inay saamayn badan ku yeesheen iyo khilaaf siyaasadeed saddexdaba. qarnigii afraad horaantiisii 317 markay ahayd hijradu, xiliyadaa ku beegnayd 16 17 ayay ahayd xilligii xujaydoo xaramka joogta oo kacbada iyo tawaafka iyo zamzamiyo wada jooga, xilligii nimankii qaraamitada ee shiicada ahaa ku soo duuleen oy biyaha meydkii zamzamka ceelkii ku gureen, oo dhagixii xajiru aswadka ahaana fujistoon ay la tageen oo dowlad xoog badan ay lahaayeen, ay muddo dheer kula maqneen abu taahir alqurmuti ninkii la dhihi jiray. markay culimmada taarikhdu ka sheekeynaya sida dahabi raximah allahu tacaala taarikh alislaam oo kaleeto, wuxuu leeyay sanadkaas yowmu tarwiyay ahayd, maalinkii 8aad ee maka intii laga baxa mina la aadayey buu ku duldegay dadkii oo dadkii laayey. lam yaqif axadun fii haadihi الsanata carafa qofna ma istaagin buu dahabi leeyahy. hal qofa waa un la kala cararay. nin walba naftaa orod bay kugu aamintaa in dhimatay iyo in gacan gashay iyo in dhaawacantay iyo in carartaa la noqday. sanadka marka imaamu dahabi wuxuu sheegayaa carafo inay cidlo ahayd oon qofnaba istaagin. taa waata colaadda tusaalaha labaad waxaa jira tusaale cudur iyo xanuun ah, waa loo baajiyey ma maqal, laakiin waa lagu baaba'ay. nufuusta dadkuna in la badbaadiyaayey ciddii mas-uulka ah ama lagu dadaala si loo badbaadin lahaa waa waajib ciddii mas-uula saaran. alxaafid ibnu kathiir raximah allahu tacala fi lbidaaya walnihaaya wuxuu ka sheekeynayaa maka cudur ka dilaacay oo xilligaa magaciisa la dhihi jiray almaashiri fi lbidaaya walnihaaya. sanadkii markay ahayd 357 hijradu markay ahayd bay ahayd isla qarniga afraad dhexdiisa. wuxuu leeyahy sanadkaa dadkii xajka soo aaday badankood iyagiiyo gaadiidkoodii dhexda ay ku baaba'een. gaadiidkiina oon baa laayey, dadkiina xanuun bay ugu baaba'een dhexda. intii soo gaadhay ma gaarin buu yidhi maka, waxaa gaadhay dad yar baa gaadhay. markii uu maka dad yar gaadhay wuxuu leeyay iyagii laftoodii badankood way dhinteen markay xajka dhammaysteen. markii hore badankood dhexday ku soo dhinteen, intii yarayday timid badankeedna xajka markay dhammaystay bay ku dhinteen acmaashii xajka iyo meelaheedii
cudurradii xanuunkii dilaacay ee dadka laynayay saas darteed dadku hadday khatartaa caafimaad timaado way dhici kartaa cudurro inay fidaan xaafid ibnu xajar markuu ka sheekeynaya daacuunkii masar iyo qaahiro ka dhacay ay maalintii mararka qaarkood 1,000 qof dhimanaysay markuu ka sheekeynayo oo isagu uu goobjoog ka ahay oo noolaa wakhtiguu joogay ahayd wuxuu ka sheekeynayaa dadku cudurku wuxuu sii fiday markay dadkii xajka ka yimid oo xujaydii isa soo tallaaleen ay ku soo noqdeen waddankii bahalkii aad buu u fiday ilaa dadkii wax aasan la waayey wuxuu ka sheekeynayaa dad aasayay meyd oo dadkii dhexda sii waday dhexda ku dhimanayaan uu leeyahay 1 nin mise 2 nin baa qabrigii la gaadhay iyagoona aasin bay meesha ku dhinteen marka waxay tilmaamaysaa markaasi cudurradu meelaha la isugu yimaadi iyo khutuurada ay yeelan karto daacuunkii camwaasna markii dadkii aada u baaba'een hala kala fogaadeen camr ibn caas buu ahaa ninkii u horreeyey ee bilaabay yidhi waxaa ii muuqata meesha isugu timaadaanba bahalku inuu eber idinka dhigaye buuraha kala gala buu yihi nin walowba meel cidle iyo gaara tag buurihii la kala galay baa lagu badbaaday marka dadkii in la yidhaahdo khatar bay yeelan kartaa isu imaatinkii ama jumco ha noqoto ama jamaaco ha noqoto ama xaj ha noqoto ama meelo kaloo la isugu imanayo haddii danni haaliba ay noqoto malaha loo badiyo inay xanuuno iyo dhibaato iyo baaba keenayaan jumcada iyo jamaacadana waa looga hadhi karaa waana loo baajin karaa xajka iyo acmaasha isugu tegitaankiisa ahna waa loo baajin karaa haddii xajka aan la baabi'inin oo masaaxo weyn baa furan khaymado waaweyn oo fara badan oo malaayiin qaadana way ku yaalaan meel walba inta la nadaamiyo dad uun shicaarkii nooleeyo la helo kacbadiina tawaafa carafana istaaga minana taga haddii la helana oo xajkii waynan mashaacirtii cidla noqoninna oo inuun oogta qadarkii suuragal ahna way ka sii fiican tahay haddiiba ogitaankiina dhibaato weyn ka timaada laga baqana waana laga baaqan karaa waana la baajin karaa waxaase qofka ka khuseeya gaarkaa waxaa weeye in niyaddii haddii uu lahaa sanadkan inuu xajiyo xanuun iyo cabsina ay baajiso insha allahu ajirkiisuu helayaa waayo xabasahum ulcudru buu noqonayaa nabigana alai slam waa kii yidhi isagoo jihaad aaday dadna madiine ay ku hadheen gaadiid iyo waxay ku maraan waayey qaarkood iyagoo aada isu cilkaambinayo ooyaya ay hareen yaa nabigu wuxuu yidhi waxaa jira dad tog kastood soo marteen iyo meel kastood marteen idinla jooga ajir ahaan iyagoo madiine jooga saxaabadu waa yaabeen iyagoo gurigoodii madiine jooga bay annaga nala ajir yihiin markaasuu yidhi haa xabasahum ulcudru cudurdaar baa reebayoo way jeclaayeen ilaahna qur-aanka tabug baahida waa kii ku yidhi qolo waxaa jira ku weydiinaya ood leedahay gaadidaan idinku qaad laa ajidu maa axmilukum calayh tawallow acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun dad baa ku ictikaafi jiray 10ka dambe ramadaanka dad baa xajkan rabay inay aadaan insha allahu ajirkoodiina waa leeyihiin haddii ilaahay cimrigi iyo ajal ku sugana waxaan rajaynaynaa sanadka dambe inay si nabada mar labaad iyagoo nabada ku xajiyaan baan u rajaynaynaa marka waxba niyaddana ha iska xumaynin waxbana haddii qadar ilaahay ay ku dhacday ku kalsoonow insha allahu haddii khilaas iyo jiid dadaal ay ka ahayd in ajirkeeda helayso ilahi subxaanahu watacaala cudurradan waxaan keena allah inaga qaado ilahi subxaanahu watacaala acmaasha saalixada allah ina waafajiyo niyadana allah inoo wanaajiyo intaasaan kaga baxaya kelmadeennan intaan kelmado kale isaga imanayna sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi